waxaa maanta barqadii si toos ah uga bilowday xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay ee Bilfil ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika olole nadaafadeed oo lagu suulinayo qashinka tuban hareeraha xaafadda Bilfil. Mashruucan nadaafadda ayaa ahaa mid ay isku soo xilqaameen ururka dhalinyarada xaafadda Bilfil ee hoostaga Majliska Dacwada Islaamiga Albayaan oo inta badan u istaagay arrimaha Soomaalida Koonfur Afrika. Waxaa ugu horeyn saxaafadda la hadlay Cabdirashiid Colaad oo ah afayeenka mashruucan ololaha nadaafadda isagoona ka hadlay muhiimadda ay leedahay in wax loo qabto dadka aan guryaha haysanin ee Koonfur Afrikaanka ah. Marka ugu horeysa barnaamijkan waxaa qabanqaabadeeda iska lahaa gudida dacwada Albayaan iyo ururka dhalinyarada dacwada iyaguna Soomaaliyeed ee magaalada Bilfil. Ujeedaduna waxay tahay in laga qayb qaato nadaafadda guud ee deegaankan aan ku noolahay Bilfil ahaan khaasatan inta townka ujeedada looga gol leeyahayna waxa weeyaan in lagu dhiirigeliyo Soomaalidu inay ka qayb qaataan nadaafadda iyo ilaalinta deegaanka ummadda kale ee nagula nool wadankan ee South Afrikaanka ana la tuso in ay dadka Soomaalidu yihiin dad nacfi leh oo aan ahayn dad wax doonaya. kadib markii uu soo gabagabay ololihii nadaafadda ayaan waxaanu la kulannay gudoomiyaha dacwada Albayaan ee gobolka Western Cape oo inooga warbixinaya waxa uu ku saabsan yahay ololahan. bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam ama bacd. runtii ololahan in arkaysaan waa olole nadaafadeed oo qabanqaabadiisa ay lahayd golaha majliska dacwada Albayaan oo hadafkiisu yahay maadaama oo xaafadan aan degannahay Cape Town ka degannahay ee Bilfil ay tahay meesha Soomaalida ganacsigeedu uu ku yaalo deegaan ahaan runtii ay degan tahay masjidkii baa hadda aan aad nooga fogeyn Soomaalida saadaradeed marka qorshahani wuxuu ku wajahan yahay inaan nadiifino maadaama nadaafadu ay tahay nadaafatu nisful iimaan wallahi arrin muhiimsan Cabdi arinta sheegtay waa sax deegaankan hadda aan aad uga shaqeynayno waxa wasaqda ku badiyay dadka aan guryaha lahayn baa degan dadka nolosha ka dhacay dadka muxuu ahaa drugski wax la midka isticmaala dadkaas meesha musuqmaasuqna sidaas uga leexatay saadaradeed marka anagu waa laba arrimood bay faa'iideynaysaa marna waa nadaafadii guud iyo bilicdii magaalada ka qayb qaadanaysaa mar labaadna waxay khidmo u tahay dadkaas nolosha ka dhacay oo meesha jooga iyaga laftooda saaka aad noogu mahad celinaya markaan waadin xaqaynaa meesha ka durka waa isleenahay kuwa wax garadka inay xoojin doonto mawaaqiftooda ololihii ay ugu jireen isdhexgalka bulshada ololihii ay ugu jireen Soomaalida in ay yihiin dad Afrikaan oo walaalahooda ololihii ay ugu jireen Soomaalidu inay tahay dad wadanka wax ku soo kordhiyay inay saacidayso oo kor u qaadayso waa qabnaa insha Allah. ololahan nadaafadda ah ay ka sameynayaan golaha dacwada Albayaan xaafadan ee Soomaalidu u badan tahay ayaa la filayaa inay wax badan ka bedesho dilalka soo noqnoqda Soomaalida lagu ugarsado. Cabdi Fataax Ali Samatar Sablaale, Somali Journal, South Africa.